kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada channelkeena xigashada wararka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar, sidoo kalena gambareelka furo si aad u ogaato warbixinada iyo macluumaadka aan halkan idiin soo gelino. Barnaamijkeena caawa waxaan kaga hadli doonaa fanaanka Qamar Sugaani oo hadal sarbeeba hawada u mariyay xaaskiisii hore ee lagu magacaabi jiray Ugbaad Aragsan. Kusoo dhawaada barnaamijka. Fanaanka caanka ah ee Qamar Sugaani ayaa waxa uu hadal sarbeeba hawada u mariyay xaaskiisii hore ee lagu magacaabi jiray Ugbaad Aragsan, waxaana Ugbaad Aragsan oo guursaday muusikiyaanka caanka ee ku nool dalka Jabuuti, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Jabuuti. Waxaana Ugbaad Aragsan iyo Qamar Sugaani oo hadalla sarbeeb ah hawada isu marinaya. Fanaanka ayaa boggiisa Instagram-ka wuxuu soo dhigay hadallo uu ula jeeday xaaskiisii hore Ugbaad Aragsan. Hadalladaas oo bartiisa Instagram-ka uu kaga hadlayo ula wadaagay bulshadiisa amba taageerayaashiisa waxa ay u dhignayd sida tan. Qamar Sugaani ayaa waxa uu yidhi: intaysan rasaasta ila dhicin, hadalkii ugu dambeeyay afkeeda ka maqlo wuxuu ahaa: haddii dadka ay kaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa waxay ahayd daruur roobaad oo i dul timid, i roobaysay, doog iyo cudoon ii soo saartay. Hadalka ha badin, waxaa ku soo koobtaa nimcay ahayde kumaan shukri naqin. Kadibna ciqaab bay isu kay bedeshay. Kadibna 15 xabadood ayay igu hubsatay. Markii aan nafbaxay baan isweydiiyey waa ayo cidda ay ula jeeday haddii ay kaa weydiiyaan. Haddaba daawadayaal, bulshada Soomaalida ama taageerayaashiisa ayaa midba meel u dhigay hadalkan, iyaga oo qaarkood ku tilmaamay in Ugbaad Aragsan ay meel ka soo saartay fanaanka Qamar Sugaani kadib markii uu caan noqday, bulshada Soomaaliyeedna baratay, oo ayuu ka tegay kana guursaday una doortay gabadh ku nool wadanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, oo haysata baasaboorka wadanka Ingiriiska. Waxaana bulshada Soomaaliyeed ay u sheegeen in Qamar Sugaani uu ku doortay nasiib sooran inay tahay baasaboor darteed ee aanay ahayn jacayl iyo muxibo uu qabo. Haddaba daawadayaal, fanaanka Qamar Sugaani uu erayadan u isticmaalay social media isagoo hawada u marinaya xaaskiisii hore Ugbaad Aragsan.